aamusnaanta qaarkeed waa jawaab haddana waad ka bixi kartaan in u kaadi sanjay hal daqiiqo inaan ku hadlaan rabaa idinkoo bixi kartaan okay هاي طلع dhiiggaaga noociisa ii sheeg وبي بوزيتيف karkaaga caafimaadka maysaa ها أوها يا soo saar هاي إن وحشك يا ما دنكيك كاسو قلعي maya wax shakigii ma soo gelin هاي inaad ceebka saliinta ayaan rabaa inaan caddeeyo intaasoo keliya waay haddana waa bixi kartaa وما سنت لكن الريمان مركو غوري صدمي أنا عيبك سليم كشيكتي إيجا دقيقة waa kaa dhigaa igu hadlay taas وياهي وسي بحيا waa mahadsantahay نبدي baaritaanadii aan soo wadnay wax caddeemo lagu kalsoonaan karo ilaa haatan kama aysan soo dhixin waad ogtihiin arrinta muddo 2 maalmood ayaan ku jirnaa kiiska digtoorka haddii aan soo afjari weyno waxaad ogataan saraakiisha naga sarraysa in ay hadhow arrinta u gudbi doonto annagana aan waxba ka qaban karin midda gabadha ayaa idiin soo hartay reerkooda ayaan u diray halkaas ayayna joogaysaa digtoorka maalinta la afduubtay ee la waayey iyo maseejkan gabadhan loo diray labadaas markaan eegay waxay ila tahay xiriir inuu ka dhexeeyo oo qorshe uu jiro gabadha anaga waxay noo sheegtay diktoorka wax xiriire bataatan bay inuu ka dhaxayn tan kale aniga waa baxay waxaan tagay tuuladii oo diktoorka degnaay dadkii oo dhan waa aan soo wareystay waxayna idhaheen ninkaas wax cadow haba yaraatee ma leh marka annaga waxayna la tahay ninkaas inuu dembigan wax luga haba yaraatee uu ku lahayn waxaana ila wanaagsan ninkan shakiga laga qaaday in layskaba dhaafo saas waxaan kuu leeyahan ilaa iyo hadda wax caddayna kuma hayno ninkan wax aqoona ma u leediin si fiican u eega maxaa isu fiirinaysaan oo weliba aad u fikiraysaan waa yaabteen soo maahan ninkan arthur lee allen ayaa la yidhahdaa 1967dii xaaskiisa waxay u dhimatay iyadoo 66 sano jirta cudurka kansarka wakhtigaas wixii ka dambeeyena guur iskuma uusan dayin maadaama xaaskiisa ay kansar u dhimatay 12 xarumood oo kansarka lagula dagaalamo ayuu furay isaga ayaana maalgeliyey sanadku markuu ahayd 1979 ayaa maxkamadda soo taagay waxaa lagu xukumay dil toogasho sababta ma fahmi kartaan muddadan aadka u faraha badan ee 15 sana ah magaalada New Jersey gabdho gaaraya 15 ilaa 20 ayaa la waayay waxa loo waayayna wax kala meen intuu kufsada ayuu dili jiray hal mid oo tusaale idin noqon karta ayaan idin wadaa qofka markaad la kulantaan haddii muuqaalkiisa uu noqdo muuqaal wanaagsan maahan inaad tirahdaan wax dembiya haba yaraatee male ka fiirsi badan ayay u baahan tahay haddaba aan idin fududeeyo waxaan rabaa qaab aad wax ku fahmaysaan inaan idin sheego 3 markhaati ayaan haysanaa oo kiiskan ku lug leh qofka koowaad aynu ka bilaabayno waa ritu ninka wax soo baray Dr. Devraj qofka labaad eedeysana Faisal oo hore dagaal asagii ritu ay u dhaxmareen asaga ayaana ka dhigaynaa qofka labaad qofka saddexaad waa Sanjay waana ritu saaxiibkeed isaga ayaana target noo ah Devraj iyo Faisal iyo Sanjay waxa ay ka siman yihiin hal shay